waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed anagu waxaan wadanka joognaa in ka yar sanadkii inta ka yareed waxaan muuqata rajo ah in qof walba Soomaaliyeed noloshiisa ay wanaagsanaan doonto mustaqbalka sanadkii inta ka yar oo aan wadanka joognay qof walba Soomaaliyeed mushaarkiisa uu qaatay dhaqaalaha wadanku anagoo bixinay mushaar walba ayaa hadda 20 milyan iyo ka badan ay u taalaan aaminsanahay dawladda Soomaaliyeed akoonkeeda ay ku jirtaa oo jannaayana qof ka walwali doona ma jiro hadii Ilaahay raado inuu mushaarkiisa qaato anagoo joogna sanad ka yar ayaa waxa la leeyahay dunida leedahay waxaan idin kala shaqeynaynaa sida aan dhaqaalaha u kobcin lahayn anagoo joogna sanad ka yar ayaan 200 milyan la sayaxanay dawladda Qatar anagoo joogna sanad ka yaraan 300 milyan la sayaxanay dawladda Mareykanka anagoo joogna sanad ka yar ayaa adduunyada European Unionku nagu soo wareejiyeen in contract walba anagu aan gali karno oo aan iyagu go'aan noo gaari karin anagoo joogna sanad ka yar ayay bilaabeen inay lacag toos ah akoonkeena ku soo shubaan anagoo joogna sanad ka yar ayaan waxaan ka qabanay amniga iyo militariga iyo booliska sida adigu hadda ka hadlaysay anagoo joogna sanad ka yar ayaan soo deynay maxaabiista aad sheegaysay anagoo joogna sanad ka yar ayaan soo celinay hawadii Soomaaliya anagoo joogna sanad ka yar ayaan gurbidnay shuruucda ugu badneed oo waqtiga ugu kooban lagu gudbiyo qof walba oo Soomaaliyeed oo raba marka indhihiisu inay wax qabtaan uu kala garanayaa dariiqa saxda ah iyo dariiqa khaladka